fadeexad caawa dul hoganaysa Trump kadib markii uu ku faanay laynta qabiil Yamaniyiin ah oo meel bannaan ah ku shiraya. Trump ayaa saacado ka hor bartiisa soo dhigay muuqaal diyaarad Maraykan ah oo duqeynaysa shacab Yamaniyiin ah oo ku shiraya meel bannaan ah. Sida dhaqanka Yamaniyiintu yahay, isu soo baxa qabaa'ilada ayaa lagu kulmaa si wareeg ah, dadkuna ku hareeraysan yihiin qofka hadlaya. Trump ayaa soo dhigay muuqaal ku tusaya dadkii oo shiraya, wax yar ka bacdina carradii oo bas beeshay iyo dadkii oo la laayay. Ka bacdina waxa uu muuqaalka soo raacshay qoraal jees ah, haddana kibir wata. Waxa uuna ku soo qoray Xuutiyiintan kulankoodu waxa uu daaran yahay xog waran weerar. Iska ilow, Xuutiyiintu weerar ma qaadi doonaan. Weligood u suurtoomi mayso inay maraakiibteena burburiyaan oo dib dambe badda ugu daraan. Hadalka Trump ee uu ku leeyahay dib dambe badda ugu daraan ayaa loo fasirtay in Yamaniyiintu ay badda ku dareen markab ama laba maraakiibta dagaalka ee Maraykanka, laakiin la qarinayo. Shacabka la duqeeyayna ay muujinayso xanaaqa Trump iyo khasaaraha gaaray ee la qarinayo. Sharciyaqaanada ayaa qoraalka Trump ku tilmaamay qarasho faldambiyeed oo lagu maxkamadayn karo, laakiin sida reer galbeedka looga bartay waayahan, sharciga iyo xuquuqda aadanuhu macno weyn uma laha. Qofkii aan hore intaas u fahansanayna waa fahansiiyey. Waxaa hal sano ka badan ilaa saaka ka socda Gaza oo dhammaan reer galbeedku raalli ka wada yihiin. Adduunku waa isbedelay, saasoo ay tahay dadka Soomaaliyeed iyo hoggaankooduba waxa ay weli u dhaqmaan sidii wax aan isbedel ahi weli adduunka ka dhicin oo kale. Soomaalidu ma baraarugi doonaan mise waxay noqon doontaa lax waliba shilalka ay dhigato baa lagu qalaa. Dhagaysta ama daawado, waa anigoo Jabarti Yaxye, nala qaybso fikradaada iyo farceliskaaga.